hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa waxa ay maanta soo gabagabaysay isla markaana ay soo afmeertay hagayaasha iyo siyaasadaha qaab dhismeedka shaqo daadajinta iyo hanaanka kaydka iyo diiwaangelinta xogta oo kulan socday muddo 2 maalmood oo maalintii shalay ahayd uu furay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle isla markaana uu maanta soo gunaanaday ayaa waxa uu kulankaasi ujeedadiisu ahayd xog urur ay sameysay hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyadoo muddooyinkii sanadaha ahaa ee shaqaalaha dawladdu ka hawlgalayeen wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladdu dareemayeen shaqaalaha qaar oo ku rus iyo daadajin la'aan shaqo ayaa xog ururin xaalad darsid iyo xog ogaal u noqosho kadib waxa maanta la soo saaray saableyda shaqo ee 8 hay'adood oo dawli ah kuwaasi oo loo qaatay tijaabo jaantuska shaqo daadajineed ayaa fursad wanaagsan u siin doona shaqaale walba oo ka hawlgala wasaaradda dawladeed iyadoo wax weyn ka tari doonta shaqaalaha ka caban jiray in aan shaqo loo dirsan amaba aan aqoontiisa laga faa'iideysan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle ayaa kulankaasi ugu horeynba ka hadlay ilaahay baa mahadlay halkan isugu keenay inagoo ka tashanayna waxyaabo qarankeena horumar u noqon kara gaabis meel naga jiro inuu u baahan inaynu kobcino iyo waxaynu ku kobcsanayno kaalin gal u sii baahnayno sii wadno ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo fududeyntan iyo shaqadan wanaagsan maalmihii u dambeysay haysay iyo idinkoo waqti badan iyo tacab iyo tamar iyo ra'yiba geliyo runtii sidii hawsheena ay u noqon lahayd wax dhaqan gala on ku dhamaanay khaanada galaan ay ku dhamaadeen gacmahina u soo dhacdhacaan ay fulaan shaqo caadi ah ka qabsoomaan fududeeyaasha barnaamijka saraakiisha kala duwan ee rugcadaaga iyo isugu jira shaqaalaha muhiimka u ah wasaaradaha qaranka ee maalmihii la soo dhaafay kulankan aan u kala kicin si dareen leh oo dalnimo leh oo adag uga shaqeeyo runtii waan idin hambalyeynaya waan idinka mahadcelinayaa hawsha wanaagsan qabatayni insha Allah ta'ala waadho wax dadka doontaan iyagu qarankiina wax ka taray ubadkiina damana ay ku aayeen insha Allah ta'ala sidoo ogtiin waxaynu maalmihii u dambeeyay faaqideynaa ma aynu wado dheer soo qaadanay laba shay oo shaqaaluhu inuu horumar salwa waa qodobka koobaad waa qaab dhismeedka shaqaalaha iyo shaqadu daadegto waxaynu ognahay shaqaale badan oo wasaaradeena jooga waxay ka cawdaan waxba leeyma dirto qof kale wuxuu ka cawdaa shaqadii wasaaradda dhamaarigay ku duldhacday taasi waxay u baahnayd maamul daadajin iyo shaqo dhaadhicin iyo saableyda shaqeeyna dhaadhacsanto qof walba runtii markuu soo shaqo tago yaanu wasaaradda u fahmin jeelasha kamida oo maad maqnayd iyo wad habsaantay inuu la oran shaqo wanaagsan oo xiisanay ay taalo oo og yahay qarankan dadaalka weyn ee la wado inuu meel isna kaga jiro shaqada yar oo maanta qabanaya in saameyn weyn ku leedahay guusha guud ee qaranku u socdo si ay taas u dhacdo waxay u baahnayd saableyda shaqeynayna daadajino wasiirka agaasimaha guud wixii ku hooseeya marka shaqada inay noo dhaadhacdo waxaynan yeelano unugiyana yeelano ka sii hooseeyna yeelano ilaa shaqaale shaqada fulinayna yeelano taasi baa waxay saameyn weyn ku lahayd inaynu shaqo wanaagsan qarankan u qabsoomin karno waxa labaysa saableyda shaqo marka aynu sameeyno qof walbaba oo saableyda kamida maxay waajibaad shaqo u yaala waxaan cadaan ku leeyahay job specification ama terms of reference markaad wasaaradda ku soo beerto ma shaqaale un baad timse waajibaad qoran baad ku leedahay oo lagu xisaabtamayo inaad guusha ku gaarsiiso tii koobaadna wada saarnay bay ahayd in saableyda shaqo si degdeg ah ahayd shaqaaluhu soo saarto oo wasaaradda walba ay yeelato saableyda shaqo dhaadhacsan oo mid walbana waajibaadkiisa shaqo ku lifaaqantay arrinta waxaan degdeg u sameyn doonaa tababaradeedii si luxdideedii fahamsiinteedii ugu dambeyntii fulinteedii baan degdeg u raacinaynayo waxaan rajeynayaa waadhow qof walba oo wasaaraddu soo shaqo tagay aroortii inuu garanayo meesha maxaad ka qabanaysaa maxaa maanta ku yaala shaqo arrintaas fulinteeduna waxay qiimo weyn u sameyn doontaa shaqaalaha oo garanaya maanta hadalkan ka hadlay qiimaha ay leedahay iyo inuu garto waajibaadka wasaaradda dhexdiisa uga yaala kii shaqo badan ku dul dhacayso bishaarayso waa laga kala gurayaa wixii aanad lahayn kii ka cabanayay inuu maskax ahaan أو عاجسي وماشي إسكده فدينا بشعر سشق عادينا كوسو صعطة هذا قونا هاني ويارك ما بكون اسمه إن شاء الله تعالى دق بين نوفلين دونا وحلا بيا هجها اللبعض أما سياسة اللبعض هجها كيدين تحقت سنين وجنا هي إسبدل لذا الدولي أمر البواد عن أما دي مشابه تير توقف وشقده وكبحة سدرت روح على جمار ما حق هيتسن إنك كده بيا ما دوي ما دو ما هاينا المالي والبئر كسب بالورو وحين دوننا مسؤول كمركو حفيز تجو إنه قرني هالك وحكسب بالعمين يا حاجة وحمرنيا يا حاجة ما أنت اللي قلت هاي حقت شغالين كيتسنت ويحفظنتها ويمالي نوتها وهو حافظ قال له يقول ريكورد مانجمنت أما مارينت الديوانك إن ديوانك وسارده ماريسين هاي أو هبيسين هاي أو هالكيسن
lagu soo gaaray hadii boqolaal sano isdhaafto ama ay kala bedelanto in reer guuraaga iyo geediga ka saarna shaqada Soomaalida waxa la oran jiray waa dad geediya ama reer guuraaga oo meesha kuma qorsheysan jirnay bari ka tagayeen laakiin dawladnimadu waa wax sal u yaala oo loogu talagalay boqolka iyo 200 soo soconada sanad soo socdaba inay wax xafidano meel loogu yimaado yihiin geedigii reer guuraaga iyo xogtay noo keenay kala duwanaato si dawladeed u shaqeeyno labadaas siyaasadood ama labada hagay maaha wax ciyaare waxa noqonaya doonaan wax runtii qarankeena saameyn weyn ku keeno dhinaca kale Cabdi Aadan oo ah madaxa mashruuca dib u habeynta shaqaalaha dawladda iyo waliba Luul oo ka socotay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa kulankaasi ka hadlay maanta waa la iska qaatay waxa la isla eegay shaqaalaha loo baahan yahay meelaha ilin waxa soo kordhay waxay soo kordhay mid walba waxa la isla eegay sheegatay shaqaalaha ay u baahan tahay waa la isla qaatay taa waxa kale oo la isla qaatay in xaqii diiwaanka record management policy kaydka macluumaadka wasaaradda siyaasadda wala isla eegay waxaan ka shaqeynay labada document habkay wuxuu record garayn lahayn sidaynu u maamulayno maarayn lahayn sidaynu waraaqeena u xafidi lahayn maamulka iyo maaraynta record management ku saabsan xafiisyadii Cabdirashiid Cabdi Wahaab Hussein Universal TV Hargeysa